channelkii Mataanka Official waanigu maantana alxamdulillah waan nabad qabaa waan caafimaad qabaa alxamdulillah waxaan rajeynayaa sidaan caafimaad qabo inaad caafimaad qabsaan idinka laftigiinu maanta waxaan noo wada sheekayro marka aad dhageysatid ama aad maqashid waxyaabo fara badan ku soo dhacay ma wanaagsano erey khiyaano ama khaa'intinimo in qof la khaayimo ama qof la qiyaamo sida u taqaantiinba kulli ma wanaagsano maalin baa waxa dhacday maalin maalmaha kamida baa waxa dhacday waxay ahaayeen laba nin oo saaxiiba laba nin saaxiibada ahi waxa dhacday waxay safar bay ahaayeen marka safar bay ahaayeen meel saxara bay socdeen safarkii soo socdeen baa waxay galeen meel saxara kadib markay meel saxara galeen baa waxa dhacday waxay wateen hal sac labada wiil ee saaxiibada ah mid kamid ah wuxuu watay sac hal sac buu watay kadib way oomeen wixii hasi ay u wateen inay saxara ama dee safarka wixii safar ay u wateen oo dhan uu kala maqan biyihii iyo cuntadii ma garatay meesha u socdaana meesha marka ay joogaan way ka fogeed man ka fogeen macnaha adii muddo way socon lahayn ilaa iyo waqtigeeda ka badan dhowr saacadood intaasna ma haynayso haraadka ay qabaan macnaha sida ay u ooman yihiin labadooda iyo sucuba meeshan u tahay kulayl hanfiba soo kacay hanfid waxaad moodaa in bensiin kulul isku shooyo saas ma saxba saade jirka bini'aadamka saa u daayay garanaysaa baa haddaba se u socdeen ba waxay arkeen ceel dheer oo aada u dheer oo biyo hoosta kaga jira ma arkeen markaa waxay wateen xarkada caadiya xarkaan dadka safar baxay waxba uga qaateen moogta xarig dheer bay wateen oo haddii ay biyo arkaan macnaha inta u dhex ritaan qof soo dhaamsan karo si ay biyaha uga dhargaan waxa dhacday haddaba ceelkii ay arkeen biyihii bay rabaan si ay uga cabaan labadii ninkii saca waa lahaa baa wuxuu yidhi saaxiibow anaa biyaha noo galaayo biyahaas ay noo soo dhurayaa wuu galay biyuu soo dhuraa wuu soo dhiiba saaxiibkii wuu soo dhiibaa saaxiibkii biyuu ka dhargay siciidna biyuu ka dharjiyey kii kale saaxiibkiina wuxuu ku jiraa weli ceelkii dhexdiisa kadib waxa dhacday wuxuu ninkii korka taagnaa baa is yidhi nin sacan iyo intaa ka haysid iskaga takan saaxiibkiisii ku jiray meesha biyaha dhexdeeda ceelka wuu ka tagay macnaha wuu khiyaamay sicina wuu ka haystay kadib baa waxaa dhacday sida tan ninkii waa laga tegay ninkii ceelka ku jiray isagoo iskaga jiro ceelkiisii baa waxa markaa yimid nimanka markay yimaadeen way ku dul sheekaysteen uu dareemay inay dul taagan yihiin wuxuu ogaaday ceelka dushooda in loo dul sheekaysanayo wuu dhegeysanaya mana hadlay wuxuu marka hore inuu hadlo rabay kadib wuxuu markuu sheekada ahayd dadka ay bilaabeen ayuu siri bal sheekadan ka warsug show nimanka meesha ku sareeya waa niman sixiro yaala dadka sarxa maaragta wey sanadkiiba hal mar bay ku kulmaan ceelka korkiisa oo waxay is weydiiyaan wixii marka ay soo qabteen iyo hawl qof kasta hawshiis wixii suurto gashay nimankii waa sheekadii bilaabay oo midba wuxuu isku yidhi anuu dad baa saa ku sameeyey mid baa iska yidhi ama maxay baa saa ku sameeyey oday baa markaa waxaa jiray dadka kala sheekeynaya isamuuna hadlaynba indhoor buu laakiin wuu iska dhegeysanaya dadka sheekeynaya kadib baa lasoo gaaray sheekadiisa marka sheekadiisa lasoo gaaray baa waxaa dhacday in lagu yidhaha waraadna maxaad soo qabatay macnaha maxaa soo kordhisay maxaa bal ka war howlahaaga wuxuu yidhi xaakimka odaygiis macnaha waa nin oday marka xaakim magaalada ka ahaayo magaalada haysta inantiisii yareed baa ka xanuunsadayadoo waan sirxay biyaha ceelkan siiyayo way ku caafimaadaa ma garatay biyaha ceelka lagu caafimaadsiinaya qof bilaahi
ninkii markaa meesha ku jira wuu maqlayaa markuu buu saas ayoo ragga saf way dhamaysteen dadka sixiriyaasha way dhamaysteen sheekadoodii way iska tegeen macnaha kadib ninkii ceelka weliba ku jira nimankaa reer miya iyagana reer guurataayo ahaayo safar ku jiro biyo soo maro biyo weysiyaan dhadhaansado waxay arkeen nin ceel ku jiro hore soo badbaadiyey buu ku yiriyo markaa jimbe iyaga mudan waxaysan meesha jimba ku jiro sir walaal jimbe iyo qof bilaadmin hayay soo badbaadiya saar soo badbaadiyo ninkii waa soo tagay safar buu soo qaatay ilaa halkii odaygii markaa la lahaa gabadhiisan ceelka biyaha ku daweynaa biyihiina intuu qaatay unbuu magaaladii tagay security-ka meesha taagan dadka ilaalinaya odayga xaakim suul xaakimka rabaa sala waryaha waa lagu qosqosday orar naagta waa lagu warani maxaa ka rabta inantiisan dawo wada war dhakhaatiirta magaalada degan baa dawadiisa weydaye oo naga tagniya nacasnimo nagala tag baa lagu yiri war suul meel waan rabaa oday anu inanta dawadeedana haye xaakimkii geey ninkii waa xaakimka loo geey xaakimkii waa wuxuu ku yiri inantada qolkaasi ku jirtaa qofka u galana way dishaa hadday wax kusoo gaarsiiso anuga mas-uulka miy ninkeeda waa nin wax wixii looga sheegayo wataa moogta wuxuu yiri dhib ma laha wuu galay saaba uu soo boodo markii waxaa istiride xago oo rifa ninka biyo saaba u sheegay shagax qofti waaba isdhiibtay daadaxa way hagaagtay waxaa yimid xaakimkii waanantada saas uga daweysa haa wuu farxay inantiisu intaas sana xanuunsanayso oo la dawey wuxuu yiri inanteeda nin kale oon ku darayaa oon adiga ka ahayn ma jirto garanaysaa iyada isagii ku daray haddaba xaakimkii waa dhintay marka gabadhii wiilka ku daray wiilkiina dee wuxuu noqday markaa nin iska taajira hadeeroo dee xaakimka sheekadiisii wixiisu la shaqeeya odaygiiba meesha ka tegay haddaba gudaay odayga markuu dhintay baa waxaa dhacday haddaba maalinba iyagoo magaalada ku jooga dadkii buu baxay isaga ninkani xaakim markaa isaga xaakim la wareegay moogta in xaakimka u dhintay markuu xaakim la wareego banaanka iska soo wareegay wuxuu arkay markaa ninkii berigii siciisa kala tegay ee soo kaxeeyo ninka maarta soo qabta soo kaxeeyo koona soo kaxeeyo guriga la kano wuu wareystay wuxuu yiri may taqaantaa soo yiri may xaakim nin miskiin iska adna xaakim baata sayns ku noqona uskeedin horseer washii caado feer may taqaantaa soo yiri dan goorta mawlkii aan saaxiib ahayne saas ahayd taawo ku yiri xaakimka lagu qabsaday karaa laho berigiina xabayno kala ay qaaday guri baa la tegay uskeedin garanaysaa marka haddaba ninkii baa marka la cafiyey wuxuu ku yiri arrinkaas ku dhacay ninkii khiyaanoolaha weydiinaya xaakimka saaxiibkii imika waa xaakane ninkana weliba daacad horaa loo yiri muhungooda moogta wuu sheekeysay wuxuu dhaceen wuxuu yiri arrinkaasaa dhacay ceelka markay iga tagtay niman baa dul sheekaystay nimanka sheekadoodan dhageystay arrinkaasaan sameeyey ceelkiiba biyaha kasoo qaaday gabadha ku daadiyay sidii ku caafimaaday odayga sidiiba gabadha igu daray adiga waxbuu saas ka akhriyay wixii ku jiro dhan buu sheegay ninka weliba khiyaanoolay anaasayo haa okay buu yiriyo fagax buu yiri dilaa ceelki wuu luntay ceelkii wuu tagay ceelkii ku fadhacay niman kii haddaba wuxuu magaceega wuxuu dhacday nimankaas soo dhegeyso ceelkaas biyaha kasoo qaado ma garanaysa cilmigeeda uu mare waxaa dhacda haddaba dee nimankii berigii isxiraloyaasha halkii sanaba halba yimaadeen moogtay baa yimid sheekada iska bilowdaan odayg iska aamusnaa la weydiiyey hal weer maxaa dhacay suur waan xanaaqsanaya anigu xanaaq buu naftu waan xumo ka xumaa in arrinkaasi uga dhaco maxaa dhacay dee gabadhiiyaan sarxay baa nin daweeyo biyihii ceelka u geeyo uu daweeyo u dhegeysta kana u dhegeysanaya moogta marka haddaba ninkiibaa wuxuu yiri laba arrin mid baa jirta ama inaga dhexdeena arrinkaas intada mid qof qaada buu u geeyey arrinkaasoo gabadhtaasi ku caafimaaday taa haddayna dhicin waxaa dhacday nin baa ceelka ku jira kaasaa warka gudbiya ceelka laftigiisa anigu nimanka waxay yidhahdeen anagu waxa maan sheegin anagu waxba iska sheegteen haddaba wuxuu yidhi ceelka laftigiisa
dhagaxaan hala dimiyo macnaha hal xidho dhagaxaan lagu guro ceelkii waa la dimiyey dhagax waa lagu guray ninka sidaba ku dhintay khiyaanolaha magaaladiina waxaa iska haystay ninkii saaxiibkiisa ahaa xaakimka imka la ka dhigay gabadhii isagaa iska qaba magaaladii isagaa kala maamulka u kala deganta saaxiibkii khiyaano ahaana waa ku daay weligaa haddaad isku dayda inaad qof qaayantid ama haddaad isku dayda inaad qof aad wax ka samaysid ama aad dhibtid ama aad kibir ula timaadid ma wanaagsano waxaa marka asxaabta dhalinyarada ee daawanaysa kula talin lahaa kibirku ma wanaagsano khiyaanada sidoo kale ma fiicno weliba khiyaanada iyo beentu labadaha laska ilaaliyo aad laska ilaaliyo aad ma wanaagsano qof saaxiibka hadda weliba oo isla soo safarteen oo intaas dhan dhif soo wada qaybsateen inaad ku keentidna waa kul ilaah waa ku arkaad haddii isagu bilaadanki aad ku keentid iyaa ku abuuray allahna waa ku arkaa marka asxaabta waxaan leeyahay dhammaantiin aad baa idin salaamaya sheekada maanta ku saabsaneyd aad iyo aad noo idin salaamaya waxaan leeyahay kusoo dhawaada mataankii ofishiyaal